السلام عليكم برتنوغا فايدة channel فضلنا هاديات كو عصبت داودة سبسكرايب ده سود ودا داودة يال maanta waxaanu ka hadli doonaa labada meere ee kala ah Saturn iyo Jupiter kuwaasiyo bishan ay ku jirno si aad isugu soo dhawaaday lagana arkayo dhammaan caalamka waxaana laga arki karaa jihada ah southwest koonfur galbeed haddaba siday taariikhyahanadu sheegayaan labadan meere ay isugu dambeysay 1266 taariikhda miladigaa labadan meere oo somalidu taqaano cirjiidh iyo Raage ayaynu si cad u kala qaadi doonaa Jupiter waa ka aadka u warwaraya kana weyn badahaan marka loo eego Saturn halka Saturn yahay ka ay ku wareegsantahay goobadu labadan meere ayaa ka mid ah kuwa loo yaqaan solar systemka amba baxadeedka haddaynu ku horeeno meeraha Saturn amba cirjiidh fogaanta uu cadeed ka fog yahay waa 1427 milyan oo kiiloomitir inta uu ku wareegana ay tahay 12 sanaba hal mar ka loo eegayo sanadada dhulka sidoo kale meerahan wuxuu leeyahay 18 santareed amba 18 dayax waxaanu caan ku yahay goobada safarka lagu meersan ee casuuska yara ah haddaynu ka gudubno inta Saturn macluumaad ku saabsan amba meeraha loo yaqaan somalidu taqaano cirjiidh haddaynu gudubno meeraha Jupiter ayaa ah meeraha ugu iftiinka dheer amba ugu warwarsan marka loo eegayo meerayaasha kale taasna waxa sababaya weynaanta ugu weyn yahay meerayaasha meerahan ayaa la yiraahdaa inta uu cadeedu ka fog yahay waa 778 milyan oo kiiloomitir 29 sanaba hal mar ay ku wareegaa cadeeda aragtiyo kalena way jiraan waxa uu leeyahay 16 satellite amba 16 dayax sidoo kale Soomaalidu waxay u taqaanaa meerahan mushtar haddaba labadan meere ayaa meerayaasha labada ugu waaweyn halka Jupiter yahay ugu weyn Saturn yahay ka labaad ee isaguna ugu weyn inta la yaqaano meerayaasha haddaba labadan meere ay isku dambeysay muddo 8 qarni ka hor in sidan oo kale ay u kulmaan markan xigta ayaa noqon doonta muddo sanadaan qarniga ka bacdiya taana waxa sababaysa fogaanta ay ka fogyihiin cadeeda taasi oo ah masaafo aad u badan waana adag tahay in isku soo dhawaadaan amba ay kulmaan sanado isku dhow taasna wata ka dhigaysa inay ku qaadato qarniyo daawade labadan meere ayaa si cad looga arki karaa xagga cadeedka dhaca amba koonfur galbeed marka bacda maqribka siibahaan bishan ay ku guda jirno oo aad iskugu dhow yihiin